السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا هو إذن سلامين ميل بدون دافع جوجتين صد وهذا برتي يوتيوب كنوع عجة قف كذا الله الله إنه إسلا إسقي نوع عجة فضلا هذا ربع سبتنا سبسكرايب جري هذا نوع سبين هرن ولا جوتين أد بأم محسنت للجوج هجا إنه لايك جري جست صوتك بدن كله إنه جار ولا الله كله إن ما أنتوا حندونا إن كان البرنامج كي أنكو سهر وقصو هذا الجدو أهدي بيلو تايجا أيان دونا إن أنا هدنا معركتي حقوق أن هلي أما ور أن هلي إن لو ذا إن الشيء جري أيان جعلستي حقوقس أن هلي وحكمت سفاردوينكا waxay yiraahdeen iyo safaarada Kenya sidii xaalkeeda yahay safaaradooyin badan ayaan kasoo warhelay ama aragtay aan soo yaro xog baaray ama dad soo warwareystay wiil ayaa jiro oo safaarada India ku maray oo congratulations aan dhihi karnaa wiilkaas uu ku guuleystay fiisihiisana waa la siiyey wiilka ayaa jira ayagana ku mareen dalka Turkey ku mareen ayagana safaarada xaggaas ku taalo ayagana waa la siiyey fiisahooda labadaas qof oo Turkey ku martay iyo wiilkan kale oo India ku maray waxay haystaan shahaadooyin Soomaali ah ما aysan haysanin shahaado kale marka shahaadada xagga dhinaceeda su'aalaha way yar yihiin maadaama ay maaragtay cabsi badan xaggaas ka jirto oo ma aqoonsanin sida safaaradda Kenya nagu dhahday message-ka hore in ku tusay video ka horeeyay waa aragtay waxay dhaheen ma aqoonsanin shahaadooyinka oo maaragtay ama dokumentiyada Soomaaliya dhan ma aqoonsanin ma aha kaliya education ka hore idinku soo waray ma idinku sheegaba marka waxaa jirto safaarada maaragtay Djibouti idana wiil Soomaali ku maray oo maaragtay sagana la siiyay ayaa jirto marka su'aalo kama taagna xaggaas shahaadooyinka walwalka ku jiray ama problemka nagu jira oo shahaadooyinka la diiditaanka ahaa way yaraadeen hadda safaaradda Kenya baa dadku ku sii adkeynayso last Friday hadda waxaa jiray wiil oo Soomaaliyeed oo ku marayay maaragtay safaaradda Kenya waxaa la dhahay dad intuusan gelin gudaha gabadh oo maartay meesha joogtaa ku dhahday oo documentiga aruurs especially gudaha u galay oo meesha tagay oo counterka safaaradaha marka uu geeyay shahaadooyinkiisa waxay ku dhahday shahaado Soomaali xagga lagama aqoonsano marka lacagta waxba ha iska bixinin lacag oo xadid fiisa kule system ku taqaan umalena qofka markuu uu guuleysto oo wax walba maro caafimaadka maro wax walba maro oo la balamiyo oo schedule-kiisa loo sameeyo interview-ga oo tago interview-ga first wuxuu tagay counter-kaas markuu tago soo dhaweeyo wuxuu ka qaadanaysaa documentiyasha uu haysto oo asaga karabo especially documentiyasha ay weydiinaysaa maxaa kamid ah education-ka oo secondary high school-ka ka weydiinaysaa iyo waxay weydiinaysaa baasaboorkiisa iyo su'aalo kale oo yar weydiinaysa oo documentiga dhalashooyinka in bay weydiinaysaa wax kale oo dheeraad ah ma weydiinaysa marka counter-kaas ku jiraaday ما لو أقونسان شهادين Soomaali xaggan waa lagu diidaa waxba lacagtaas ka bixin marka counter-kaas asaa ku diri doono ku dhahayo counter hebel tag lacagta soo shuftiisa oo $330 ah marka waxba lacagtaas ka qasaaranay ku dhahday bas marka wiilkii uu yiri shakiyay wiilka Soomaali meesha jooga jiro ka shaqeynayay meesha wiilkaas wareysatay uu wareystay imin marka wiilka wareystay wuxuu dhawaarun walaal qof Soomaali ah oo shahaado Soomaali haysto oo xaggan wax ku helay badana ma jiraan inta hada soo joogay sanadkan ah ma arkin sanadka hore way jireen wax dad helay laakiin sanadkan way adagtahay u dhahay Soomaali ah oo maaragtay fiisada ka qaadanay marka dhibkaas jiro safaaradda Kenya dadka ku kacsan oo maaragtay xagga political issue waaye ma aha problem kale meel kale lagala qaadsan tahay ma jiro safaaradaha oo xaggan ku taalo marka waana la hadalnay oo maaragtay message u dirnay waa maaragtay goonin waa la hadalnay laakiin marka ma aqoonsan yani way diidayaan xagga waxaan u sababeynaa inay tahay dawladda xageedaysa marka warkaasaan jecelaystay inaan la soo gudbiyo oo igu soo kordhay marka safaaradaha kale wadamada kale way ogol yihiin educationka Soomaaliya laakiin tan Kenya baa diidan marka ilaa amar dambe oo dawladda ka wanaagsan doonto oo waxay isku hayaan siyaasiyan ay ka hagaagi doonto oo yarkaadii hana ka dhigan sida daarin hore idinsiyo insha Allah hadii ay ku guuleysan sanadkan 2023 ha ka dhiganin Kenya ay ka dhigo meel kale insha Allah bidnaa kareem haduu Ilaahay nafta nagu gaarsiyo oo ku guuleysatid insha Allah bidnaa kareem inta san jecelaystay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي لو إنه سبسكرايب ريسنا نون لايك ريسنا دوم هالسن.